xajku waa rukniga shanaad ee ay diintu islaamku ku dhisan tahay waana waajib ilaahay faray ummadda islaamka ah qofkii awoodi kara ugu yaraan hal mar oo kaliya qofka cimrigiisa. xajka waa qasdi uu qofku u qasdiyo baytul xaramka isagoo cibaadaysanaya. haddii aan ka waranno waqtigii la waajib yeelay xajka waxay ahayd sanadkii 9aad ee hijriyada, ilaahayna uu dadka faray inay xajiyaan haddii ay awoodaan. xajka qofkii diida ama inkira waa gaal haddii aanu jaahil ka ahayn arrinta xajka. tusaale ahaan, haddii uu yahay qof mar dhow soo islaamay oo kale oo aan si fiican u garanaynin xukunka xajka, qofkaasi waa loo cudurdaarayaa. xajku wuxuu leeyahay shuruudo aad loo fahmi karo, waxaana shardi ah qofka xajka gudanaya arrimaha soo socda: 1. inuu muslim yahay. 2. inuu caqli qabo una waalnayn. 3. inuu qaangaar yahay. 4. inuu xor yahay uusan qofkaasi qof la adoonsado uusan ahayn. 5. iyo inuu awoodi karo xoolo iyo jir ahaanba inuu xajka ku soo guto. waxaa kale oo intaas weheliya gabadha muslimadda ah in laga rabo in ay maxram la socoto. sanad walba waxaa ka duula gagida diyuuradaha ee Heathrow ee caalamiga ah ee waddankan Ingiriiska Soomaali aad u fara badan iyo muslimiin kaleba, kuwaasi oo ku sii jeeda waddanka Saudi Arabia si ay u soo gutaan xajkooda. waxaanu la kulannay Soomaali aad u fara badan oo u duulayay waddankaasi si ay u soo gutaan xajkooda. waxaa Soomaalidaasi ka mid ahaa Soomaalidii la socotay sharikadda duulimaadyada iyo safarada ee Travelway, kuwaasi oo inoo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin. dadka qaarkood waxay ka xarmanayeen eraboorka terminaalkiisa, kuwaas oo aanu markaan weydiinay wadaadada iyo maamulka sharikadda Travelway ay inoo sheegeen si aad ku jirto inay u fududahay inay ku xarmadaan terminaalka. waayo buu yiri Sheekh Maxamed Cusmaan oo ah maamulka sharikadda Travelway, dadka diyaaradu waxay u soconaysaa buu yiri muddo 6 saacadood ah, waana diyaarad si daaragti ah u tagi doonta magaalada Jeddah. Jeddah Airport waxay ka mid tahay eraboorada caalamiga ah tooda ugu mashquulka badan, waayo waxaa ka soo degta dad muslimiin oo aad u fara badan, waxaana lagu qiyaasaa sanadkii inay ka soo degaan in ka badan 10 milyan, kuwaas oo u imaanaya inay gutaan xajkooda ama cimradaba. waxaana jirta dowladda Sacuudiga inay u dhistay dadka xujaajta ah meel dhan oo loogu talagalay xaj terminal. sidaad aragtaan, diyuuradaha caalamiga oo idil markay ku soo degaan Jeddah Airport waxay ku soo xirtaan qaybta xajka ama madiinatul xujaaj. waxaanu dadkaas loo fududeeyaa xajkooda si ay u sii gudbaan, ayuu yiri Saami Axmed Baaduur oo ah
assistant managerka qaybta Madiinatul Xujaaj. wuxuu inoo sheegay inay diyaaradahaba soo degto halkii daqiiqo mar waqtiga xajka, waxaanu dadka ku soo dhaweynaa buu yiri Madiinatul Xujaaj ayagoon u fududeynayno soo gelitaankooda waddankan Sacuudi Arabiya. Soomaalidii meeshaas joogtay ee Madiinatul Xujaaj ayaa qaarkood waxay inoo sheegeen inay ka yimaadeen waddanka Ingiriiska magaaladiisa London. عن شماجدة بارك جدة بارك يسوي دونيجا مدينة الحجاج ده مدينة الحجاج والله ماشي تكون أنت ربنا في سنة وارد ما شاء الله هنسري xujaajta inta ay joogaan Madiinatul Xujaaj ayaa waxaa laga guraa baasaboorradooda kuwaasi oo loogu bedelo ID-ga xajka inta ay joogaan, waxaana la siinayaa qolo walba ama waddan walba ID u qaas ah oo looga garto dadka intiisa kale. haddii ay wax ku dhacaan qofka xaajiga ah, waxaa isla markiiba la hayaa nambarada ay siiyeen dowladda Sacuudi Arabiya iyo goobta uu ka tirsan yahay. Madiinatul Xujaaj dadka waxaa looga qaadaa basaskaasi oo lagu geynayo magaalada Makka si ay u gutaan xajkooda ama ay u bilowdaanba cimradooda dadka qaarkood. xujaajda markii ay yimaadaan Makka waxaa la dejiyaa goobihii loogu talagalay. sida aad u jeedaan, goobtan waa goobta sharikadda Travelway, waa hoteelka Al Rawasi, waana hotel aad iyo aad ugu dhow masjidka xaramka. waxa ay dadkii xujaajda ahaa ee joogay goobtaasi inoo sheegeen inay si aad iyo aad ugu faraxsan yihiin meesha ay dejisay sharikadda Travelway. waxaanu sidoo kale la kulannay dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad uga cabaadaya meelaha ka fog masaajidka ee ay ku sugan yihiin. waxaanu ka wareysanay arrintan Sheekh Maxamed Cusmaan oo ah maamulka sharikadda Travelway, wuxuuna inoo sheegay waxaynu joognaa funduqa Rawasi oo xaramka u jira muddo aad iyo aad gaaban. waxa in badan la weydiiyey dadka aynu la deganahay mandaqadan degan waxay u badan yihiin dad ay dawladda soo dirsadeen oo sanadkan u xigta Tunis soo dirsay ku xiga waxa weeyaan Liibiya. sidee bay u suurtooday in garanaysaa dadka Soomaaliyeed ay halkan firaaqo uga helaan? waxa aad insha Allah taala khibradii sidii Soomaaliyeed ka faa'iideysanay in suurtagal ay tahay in dadku waqtiga barbaha ahaatee ay joogi karaan meel xaramka aad ugu dhow. waxaanu aad iyo aad rajo ugu qabnaa sanadaha dambana in kan ama ku kasii dhow ama ka wanaagsan ay deganaan karaan dadku. guud ahaan waxa ay mashruuc u socdaa si fiican, dadkii way wada nabad qabaan. taan ka warhayno xujaajteeda iyo kuwii kaleba waxaanu filaynaa inay wax badan ka faa'iideysteen intii ay joogeen ee culimadu magaranaysa ay muxaadaraadka u jeedinaysay. waxaana ka warrami doonaan wax fara badan markay noqdaan insha Allah taala.